شعبك بقولي سديتن أنا كسر حقولاني لباتن إيوكو سدا تراتي وأنصح إيشكر وايلو حرية boqol iyo siddeetan xildhibaan baa fadhiyey buu yidhi oo kuwa shacabka ah bimacnaa waa wada taageen kuwaas qoladii buuqaysa maxay ahaayeen iyagu xildhibaanada kama mid ahayn miya macnaha senatarada 121 baa macnaha kulli senataraday ahaayeen macnaha waxa meesha ku jira xildhibaanada may cabdiraxmaan cabdishakuur iyo waa diidaneen iyagu xildhibaanada kuma jiraan miya waayahay si kasta ha ahaata su'aalaha uu sheegayo juxa uu leeyahay su'aalaha jawaabaha ka badan tanoo kala kamida kala mida bal waa insha Allah wixii kale waa isugu imaanayna intaasan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo nabaadiina iyo nooli kulanteed warsan iyo weersan meeshaan rabaa inaan waa halkan hakad kuma jiro wax la idhidgareeyey maaha اوكي انا تيجي سوق فيها ايضا هذا ما تصل هيك سوم baa soo gelinaya kaamirada bas jarrin ma jiro waa dib baa loo cesh ma arkaa saacadkii baa dib loo cesh waayahay سوم baa soo gelinaya sideetan iyo afar oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 180 aqalka sare waxaa ogolaaday 21 sidaa daraadeed waa ansax isagana waa inuu xiriya bismillah salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh qiimiga badan qaayaha badan waa mar kale muuqaal cusub bartan adiga dhahanaysaan waa barteeni bartan kulmi jirnay walaa ka midhi bro aad iyo aad ayaad mahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay walaalaha qalbiga channelka subscribe noo saara saliga nebiga suubanaheena sallallahu calayhi wasallam ha hilmaaminina waqti sala hadday idintaa soo tukada waayahay intaa kadib saadaashu waa guul waa barnaamijkeennii waxaynu weli dhexda kaga jirnaa caleemasaarkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ka soo degay isagoo aan lamaanihiisi isagoo aysan la socon saaxiibadiisii gaarka ahaa ra'iisul wasaare xamse iyo axmed madoobe midna isagoo la soconayo wuxuu ka soo degay magaaladii firiidhaga hadalkii wuu bilowday ilaa iyo hadda khudbadii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo khudbadaha madaxweynayaasha kale oo maaragtay dowladda qaybta ka ah ilaa iyo hadda weli ma hadlin laakiin beesha caalamku waa fadhida carab iyo cajam meesha waa lagu dhan yahay firiidhaga hadalkii nuclearkii ugu horreeyey wuu dhacay ilaa hadda waa yahay kii ugu horreeyey halkan wax ka jira ma jiraan inagu jilib ma nihin jees iyo qalo uma deginin wax la dhahaa ma jiraan jilib baynu kasii liidanaa iyo jeesba hay madaxweynihii oo diyaaradii ka soo degaya baa halkan ka aragtaan iyo iyada oo aad loo sugayo ma garanaysaa heestii qaranbile loo shiday halkan waxa ka soo degaya sidaa aragtaan madaxweyne xasan sheekh caleemasaarka waa idin dhex geyn doonaa iyo xaaladdu siday tahay iyo firiidhaga hadalkii ugu horreeyey juxa ninkii juxa ahaa meeshaan kaameramanada ayaa meesha ka dhacsada madaxweynuhu ha soo socdeen naga horleexda ilma arayaal naga horleexda lagama leexin karo sidaasay u hortuban yihiinoo wakaa bal meeshaan dadkii buu salaamayaa gacanta saa ugu salaam madaxweynihii wakaa Saciid Cabdullaahi Deni baa dhinaca ka socda iyo rag kale ha socdaan wakaa waa la soo dhaweeyey madaxweynaha maasha allah tabaaraka allah gudaha la isla tegayaa ilaa iyo madaxtooyada howlkii weynaa oo baarlamaanka inuu yahay umaleynaysa howlkii madaxtooyada maaqaan halkaas baa waxa ka dhacaya caleemasaarkii saaka iyo soo dhaweyntii madaxweyne xasan sheekh iyo garowe xaalad waxay ka socotaa
aan caadi ahayn. intaa markaynu ka soo gudubno waaya waa la soo galay hoolkii waa la fariistay meeshaan waxay leelad eega waxaan kula hadlayaa magaca guddiga qabanqaabada marka hore soo dhawaada waxaan ka codaanaynaa wixii daaha iyo wixii maaragtay culaysa oo yimi waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada xafladan waa xafladisa qalamasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka toddobaad dowladda Puntland oo hadda la doortay oo dib loo doortay kadib markay 6 sano hogaaminayeen Puntland dhinaca kale xafladan waxay ku soo aadaysaa 30 sano kadib markii dowladii dhexe ee Soomaaliya burburtay 25 sano kadib markii dowladda Puntland la aasaasay 23 sano kadib markii dowladii TNG ugu horeysay carta la soo aasaasay waxay ku soo aadaysaa oo kale goor ay mar kale Soomaalidu wali qaybsan tahay oo siyaasadda iyo jihada aysan heshiis ku ahayn goor ay Soomaalidu wali aysan caloosheeda iyo amnigeeda midna ku filnayn waxay ku soo aadaysaa oo kale goor ay dowlad dhiska Soomaaliya iyo su'aalaha ku hareeraysan ay su'aaluhu ka badan yihiin jawaabaha madax badan oo Soomaaliyeed ayaa jooga erayo kooban ayaa la idinka rabaa Soomaaliya cidina uma qodna eelna uma qodna ku soo dhawaada garawe waa hadalkii Cali Khaliif Galay Soomaaliya cidina uma maqna eela uma qodna Cali Khaliif baan u malaynaya inuu ahaa waayahay hadalka bointiga dul istaagga leh oo fiirsashada leh waxa weeye xilli waxay ku soo aaday buu ku leeyahay Soomaaliya xilli waxay ku soo aaday xafladan caleemasaarka madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii toddobaad ee Puntland waxay ku soo aaday buu ku leeyahay xilli dowladda Soomaaliya 30 sano ka hor ay burburtay qarankii la yaqaanay xilli asaaskii Puntland 25 sano ay ka soo wareegtay xilli dowladdii TFG-ga ku meel gaarka ahayd carta xilligii lagu soo asaasay 2 sano ma garanaysa 23 sano kadib xilli waxay ku soo aadaysaa buu ku leeyahay Soomaaliya su'aalaha la isweydiinayo jawaabuhu aysan ku fillayn xilli siyaasadda Soomaaliya hal meel aan loo wada wadin xilli dadka Soomaaliyeed calooshoodu midba gargooniya u shaqeynayso wuxuu ku hadlay Juxa hadal yar oo aad u kooban marka la eego wuxuu hadlayaa wax hal daqiiqo meelahaas ah laakiin wuxuu ka hadlayaa hadallo soo koobaya wax marka hore soo dhawaada waxaan ka codaanaynaa wixii daaha iyo wixii maaragtay culaysa oo yimi waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada xafladan waa xafladisa qalamasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka toddobaad dowladda Puntland oo hadda la doortay oo dib loo doortay kadib markay 6 sano hogaaminayeen Puntland dhinaca kale xafladan waxay ku soo aadaysaa 30 sano kadib markii dowladii dhexe ee Soomaaliya burburtay 25 sano kadib markii dowladda Puntland la aasaasay 23 sano kadib markii dowladii TNG ugu horeysay carta la soo aasaasay waxay ku soo aadaysaa oo kale goor ay mar kale Soomaalidu wali qaybsan tahay oo siyaasadda iyo jihada aysan heshiis ku ahayn goor ay Soomaalidu wali aysan caloosheeda iyo amnigeeda midna ku filnayn waxay ku aadan tahay goor ay Soomaalidu caloosheeda iyo amnigeeda midna ku fillayn waxaas dhacaya halka ka dhacaya madaxweynihii dalka waa fadhiya waxay ku soo aadaysaa oo kale goor ay dowlad dhiska Soomaaliya iyo su'aalaha ku hareeraysan ay su'aaluhu ka badan yihiin jawaabaha hadalkaa weeye hadalka marka weyn dowlad dhiska iyo arrimaheeda xilli ay ku hareeraysan yihiin su'aalaha la isweydiinaya ay ka badan yihiin jawaabaha waxyaabaha la isweydiinayo oo jawaabaha u baahan waa tii shalay dhacday oo kale oo afduubka ahayd afduub waxyaabaha la yaab kale halkan waxaan rabaa insha Allah inaan wax yar idinku soo gudbiyo wax shalay dhacay oo la yaab leh oo aan la yaabay idinka laftigiinu eega aqli kasta oo saliim ah markuu u fiirsado baarlamaanka shalay wixii ka dhacay doodii iyo qayladii iyo murankii iyo xagga dhig
laakiin bal waxaan idin tusayaa daqiiqado yar oo kooban oo aan jarid ma gelin kaamarada meesha waxa ka muuqda kaamarada markaan hadda jaro oo kale tusaale ahaan haddaan jaro oo haddana shido hakad baa galay waa aragtaan laakiin tan iyadoon hakad gelin ninkii kaamarada hayay baa hal mar oo ka mid ah zoom soo gelinaya inta kale bal waa idiin shidayaaye daawada ma dhici kartaa wax ka yar hal daqiiqo in lagu tiriyo intaasoo 100 oo qof xildhibaanadii gacanta taagay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 macnaha 200 oo xildhibaan in la tiriyo ma dhici kartaa mase dhici kartaa macnaha boobka iyo afduubka dalka ka jiraan ku sheegaya inagoo waxna mucaaradayn sida saxda aqliga fiyow baan ku fiirinaynaa aqliga cuqdadu ku dheehan tahay ee ka hadlimayna aqliga caadi aan ku fiirinaynaa ma dhici kartaa 200 oo qof in la tiriyo 1 2 3 4 oo isugu jira laba gole haddana marka la tiriyo bal waa idin tusi doonaa laba gole markii la tiriyo in loo kala saaro 180 xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo 30 kuwa sare ah in haddana loo kala xulo oo la yiraahdo ilaa waa isnaqaanaa intaas halkaas hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ma dhici kartaa wax ka yar 5 daqiiqo bal wax yar waa mucjisada ugu weyn oo uu sameeyay aadan madoobe macnaha 2008 wixii ka dambeeyay waa talabaad uu Soomaaliya ku samaynayo aadan madoobe ma aha xildhibaanada wax rabay madaxweynaha wax rabay waxan ma waxan mas'uuliyadaas ninka samaynaya oo dhahaya waa aadan madoobe xildhibaano buuqaya iyo kuwa diidan iyo dad baa ogol iyo waxaas dhax ka dhig bal inagu waxaynu miisaan ka saaraynaa macquul ma tahay inta muddada inta leeg in lagu tiriyo bal ila daawada amanu amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaqallahu al-aliyyul azim يا سنة ثلاثة فقية بقول يسديتن أفر اللبان أو قولها الشعب كأه صوت اللي سنة وأقل كسرعة أيام اللبان قيمة ما أنت وحلو فدية لدستور جماعها وحلو فدية كلية لهذه دونا خبراعة أوركم قفوض وفوضوض وذوركوض ومجرنو ilmaanada sharafta leh sanatarada sharafta leh waxaan rabaa inaad dhegaysataan warka ay nimankaan ayaan buujinin dad wax kala watweeye shaqada ummadda Soomaaliyeed aan ugu dhaaranay baan fulinaynaa dalkeenaan badbaadinaynaa waxaan rabaa inta ogol xildhibaanada iyo sanatarada in la ansaxay ogol gacanta taagan ana soo tiriyo meeshaan rabaa inaan waa halkan anta diiday hakad kula jiro wax la ididgareeyay maaha anta ka aamustay okay natiijada soo gudbiya idinku aad u maadsan zoom baa la soo gelinaya kaamarada bas jarrin ma jiro waa dib baa loo ceshay maarka saacadkii baa dib loo ceshay waayahay zoom baa la soo geliyay 84 oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 180 aqalka sare waxaa ogolaaday 21 sidaa daraadeed waa ansax isagana waa inuu xiriya 180 xildhibaan baa fadhiyay buu yiri oo kuwa shacabka ah bimacnaa waa wada taagan kuwaas qoladii buuqaysa maxay ahaayeen iyagu xildhibaanada kama mid ahayn miya macnaha sanatarada 121 baa macnaha kulli sanatarada ay ahaayeen macnaha waxa meesha ku jira xildhibaanada may Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo waa diidanayeen iyagu xildhibaanada kuma jiraan miya waayahay si kasta ha ahaato su'aalaha uu sheegayo juuxa uu leeyahay su'aalaha jawaabaha ka badan tan oo kala ka mid ah
tanoo kaloo mida bal waa insha allahu wixii kale waa isugu imaanana intaasan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo nabaadiina iyo nooli kulanteed warsan iyo weersan